waa ciidankii ingiriiska oo markaas saldhig military ka samaystay magaalada buuhoodle. dabcan ciidamada daraawiishta waxay ku sameyn jireen weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa. marka halkan ciidankii ingiriiska oo meel yaro taaga ka samaystay saldhigga dhexdiisa, oo ciidankii daraawiishta aan meesha ka fogeyn oo iyaguna isu muuqda oo halkaa la iska daawanayo. xaggan hoosena sidoo kale waxa weeye ciidankii ingiriiska oo markaa ka samaystay qalcad magaalada buuhoodle. qalcaddan waa midaan dhismaheedu weli dhammaystirnayn oo markaa construction baa ku socda ama dhismaha weli ku socda. dabcan halkanan waxa weeye daldalool yaroo derbiga oo aan daaqad loo samayn, laakiin daldaloolka loo sameeyey oo ay ka dambeyso haddii ciidamada daraawiishta ay soo weeraraan si markaa halkan looga toogto oo markaa iyagana aynan waxyeello gaadhin. sidoo kale xagga sare balcony yar baa laga sameeyey ama meel yaroo magaranaysa dabaq yara, si markaa ay qoryahooda ingiriisku halkaa usoo saartaan oo markaa weerarada kala duwan ee daraawiishta kusoo qaadayso ay iskaga caabiyaan. dabcan ingiriisku wuxuu doonayay inuu wado tareen isku xidha berbere iyo buuhoodle ka sameeyo oo markaa agabka militariga oo si degdega u keeno, dhaawacana halkan si degdega looga qaado. marka laakiinse wadada mar dambe ingiriisku kharashkeedii batay way ka tageen, qorshaha way iska daayeen. sidoo kale ciidamadii berbere kala yimi ingiriisku oo markaa joogay buuhoodle oo Soomaalida ahaa waxay ruxan uga carareen saldhigan kadib markii daraawiishtu weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ay kusoo qaaday. iyo sidoo kale waxaa iyadoon xerada dhexdeeda ka dilaacay oo baqdinta u dheeraa cudurka shubanka ama daacuunka oo markaa ciidankii ingiriiska iyo dadkii la socdayba 10 calaa maalintii ay halkan ugu dhimanayeen oo markaa cudurka daacuunka ay u dhimanayeen. iyadoo markaa saraakiisha ingiriiska ay warqad u qoreen taliska sare ee ku yaala berbera iyagoo kaga cabanaya ciidankii Soomaalida ee laga keenay berbera oo ka cararaya meeshaas oo maalintii ay ka goosanayso raxan ciidan Soomaali ah. dabcan halkan saa ku arkaysaan waxa weeye qoraalka the fort of buuhoodle waa qalcadii buuhoodle in progress of construction, qalcadii buuhoodle oo markaa dhismo ku socda say sheegayaan. xagga sarena saad arkaysaan British post now watched by the mullahs spies the sariba at buuhoodle. ciidamadii daraawiishta markaa usoo basaasiyey qalcaddan ayaa markaa iyagana soo daawanaya, halkaa kasoo daawanaya. dabcan iyaga maysan soo sawirin, laakiinse saraakiishii ingiriiska ayay soo sawireen oo markaa ciidankii ingiriiska meesha u fadhiyey. adiga maxay kula tahay?